إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، walaalayaal haddii la yidhahdo subxaanahu wa tacaala waxaan doonaynaa ama aan rabnaa inaanu ishaarno 5 asbaab oo ilaahay subxaanahu wa tacaala risiqa uu ku waasiciyo, oo addoommada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu waasiciyo risiqa. haddaba walaal, ma doonaysaa in risiqa lagu waasiciyo, oo ma doonaysaa in cidhiiriga risiqa lagaaga baxsho oo kaaga baxo? hadday jawaabtu sidaa tahay haa, waxa weeyaan waa inaad ilaalisaa ama aad tadbiiq gelisaa oo dhaqan gelisaa 5 asbaabood oo ka mid ah asbaabaha ilaahay risiqa ku waasiciyo. 5ta asbaabood walaal, waxaa ugu horeeya alistikfaar, inuu addoonku noqdo mid ilaahay subxaanahu wa tacaala baryaya goor walbaba oo dembi dhaaf weydiinaya, oo mar walba dembi dhaaf rabbigiis ka dalbanaya, addoonnimo jelaya. ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa munasalka wuxuu noogu caddeeyey qisadii nebiyullaahi nuux calayhi salaam markii loo diray qowmkiisii oo ay diideen xaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala. allah buu u dacwo tegey oo u dacwooday rabbi subxaanahu wa tacaala, isagoo tilmaamaya waxa uu yidhi qoomkii ayuu wuxuu yidhi faqultu istakfiruu rabbakum. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ku idhi buu yidhi faqultu istakfiruu rabbakum, rabbigiin dembi dhaaf dalba, innahu eebe kaana wuxuu ahaaday khafaara mid dhaafa dunuubta addoommadiisa. haddii ilaahay marka dunuubtii uu dhaafo, maxaa imaanaya? maxaase dhacaya? waxaa imaanaysaa yursili samaa calaykum midraara. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu dirayaa roob dushiina. markaas uu roobka diro midraaran, mid noqnoqda oo da'aya, oo addoommadiisa dushooda mar walbaba ku soo laalaabta, isagoo dhibco weyn oo barwaaqo ah wata. waxaan idhi buuhi allah, wayumdidkum, waa idiin badinaa rabbigiin biamwaalin wa baniin, xoolaha iyo wiilasha intana waa idiin badinaya. wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara, eebe waa uu yeelayaa beero ayuu yeelayaa rabbi subxaanahu wa tacaala dushiina, oo beeraha idiin baxaya. wayajcal lakum anhaara, webiyadana waa idiin barwaaqeynaya alle subxaanahu wa tacaala, webiyaa la idin siinayaa oon go-aynin oon guraynin. marka walaal, waxaad garanaysaa marka istikfaartu inay tahay rabbi ilaahay subxaanahu wa tacala inuu risiqa uu ku waasicinayo addoommadiisa markay dembi dhaaf dalbaan oo uu ka raali noqdo. abaarta iyo ciriiriga iyo dhibka waxaa keena cadhada ilaahay subxaanahu wa tacaala, iyo addoonka in lagu xasuusiyo uu soo laabto. asbaabta labaad waxa weeye walaal attaqwa, wahiya taasina waxa weeye imtithaalu awaamirillaah waijtinaabi nawaahiih. addoonka inuu fuliyo amarka allah subxaanahu wa tacaala waxa uu amray rabbigii, kana hara ama ka fogaada waxa ilaahay uu ka nahiyey. addoonku hadduu sidaa ku noqdo wuxuu ku sifoobayaa addoon taqwo badan oo ilaahay adeeca subxaanahu wa tacaala. allahna waxa uu yidhi waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja, qofka allah ka baqa subxaanahu wa tacaala wuxuu u sameeyaa makaano furad iyo meeluu u baxsado ayuu ilaahay u sameeyaa subxaanahu wa tacaala. wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib, meel uusan xisaabinayn ama uusan malaynayn baa ilaahay risiqa ka siinaya subxaanahu wa tacaala oo loo dilaacinaya. walaal, marka taqwada ilaahay waxa weeyaan waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala risiqiisa uu ku waasiciyo. aayaddu kale waxay ahayd oo ilaahay noo tilmaamay waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusraa, qofka ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala amarkiisa waa la fududeeya. cidhiiriga hadduu yimaada laga qaada, waxaa loogu bedelaa risiq wanaagsan iyo fudeed baa la siiyaa. marka walaal, taqwada ilaahay ha lagu dadaalo, aanu ku wada dadaalno dhammaanteen si ilaahay risiqa noo waasiciyo, adduunyada nolol wanaagsanna loogu siiyo. asbaabta saddexaad waxa weeye adducaa, oo addoonka uu ku sifoobaya addoonnimada, ayadoo weliba waxaa wanaagsan lala eegto xilliga awqaadda la ajiibo ducada rabbi subxaanahu wa tacaala u aqbalo.
waxaana ka mid a xilligaasi walaal waxa weeye habeenkii saqda dhexe addoommada alle inta badan markay jiifaan inaad rabbigaa barido oo gacmaha u hoorsato oo xaajadaada gaarka aad weydiisato subxaanahu wa tacaala, allana waa uu aqbalayaa jalla wacalaa. awqaadda xilliga la ajiibo waxaa ka mid a bayna alaadaani waaliqaama, ayadana waxa weeye xilligaas inaad rabbigaa wax weydiisato. wa cinda asujuud, iyo markaad sujuudsan tahay oo allaah ood u sujuudsan tahay agteeda. waxaa ka mid ah wa cinda nusuul madar, ilaahay markuu roobka soo dejinayo, ayadana waxa weeye samada waa ay furan tahay, rabbigaa bari si ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaaga aqbalo. waxaa ka mid a sidoo kale qofka inuu la yimaado xilliga uu afurayo qofka sooman. awqaaddaasi haddaad ilaahay barido rabbi subxaanahu wa tacaala waa uu ka aqbalayaa. walaal allah wuxuu odhanayaa wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum, wuxuu i barya addoommo allo noqda waan idinka ajiibayaaye. marka inaan addoommo alla noqonno oon rabbi tuugno oon addoonnimo samayno, rabbinimadiisa aan qirno, ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu nagu waasicinayaa risaqa. tan kale waxa weeye afaraad waxa weeye alasbaab araabic waxa weeyaan tadbiiqu sharci, qofka inuu dhaqan geliyo sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala, u ilaaliyo waxa ilaahay uu amray subxaanahu wa tacaala, kitaabkiisa munazalka uu dhaqan ka yeesho, nebi maxamed wixii loogu soo dhiibo uu ka dhaqan yeesho, waxay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay risaqa ku aqbalo. allahu rabbulcaalamiin wuxuu odhanayaa walow annahum aqaamuu atawraata waalinjiil, markii uu nooga hadlayay nimankii ahlulkitaabka ahaa, hadday dhaqan geli lahaayeen towrad iyo injiil iyo wamaa kii unsila la dejiyey ilayhim xaggooda oo ilaahay u soo diray oo kitaaba, hadday ku dhaqmi lahaayeen oo u yeeli lahaayeen, iyo wamaa kii unsila la dejiyey ilayhim xaggooda, ay samayn lahaayeen kuwa dhaqan geliya oo arrintaasi qaata, wuxuu ihi alla subxaanahu wa tacaala min rabbihim la akaluu. soo ma jeedid, way ka cuni lahaayeen maaragtay min fawqihim wa min taxti arjulihim, samada korkeeda iyo dhulka ayay ka cuni lahaayeen nicmada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay rabbigood, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariis badan buu ku shubi lahaa. haddaba haddaad doonayso risaqa in kor iyo hoos lagaa siiyo, rabbigaa ka boqo oo waxaad noqotaa kitaabka allaah iyo sunnada nebiga nin tadbiiqiyo o dhaqan geliyo. tan shanaad walaal waxa weeye atawakul cala allah, ilahay inaad tala saarato subxaanahu wa tacaala, addoommada ilaahay aad ka reebtanaato oo aad noqoto qof allah ku xiran subxaanahu wa tacaala. waman yatawakal cala allahi fa huwa xasbuhu, ay kaafiihi, qofka ilaahay tala saartaa asaa ku filan, asaana kugu filan rabbiga. walaal markaa caloosha hooyada aad ku jirtay yaa ku kaafin jiray oo kugu risaqi jiray oo kugu nooleeyey, waa rabbiga subxaanahu wa tacaala. markaad kafaalo qaaday noloshaado dhan allaha kafaalo qaaday soo kuuma joogo, maa talada u dhiibatidoo kafaalo qaad alla subxaanahu wa tacaala ayuu kuu sameeyey risaqaagoo idil. marka walaal waxaa lagaa rabaa inaad talada asiga u dhiibato. ilaahay wuxuu odhanayaa waman yatawakal cala allahi fa huwa xasbuhu, ilaahay baa ku filan subxaanahu wa tacaala qofkii maaragtay tala saarta rabbi subxaanahu wa tacaala. wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi iddiin. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.